الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دواء بايو أكاديمي إن شاء الله تعالى وحاكم قدو دونا مانت إلهي دمكيس 10 هدي إذن السعودي 10 كميدة قارهان مادة كمستريقة قلاس قلبي تمنات وحان رجيني يايناد لوضا صعود دونتان إن شاء الله تعالى 10 هدنا دوغا حلالا وحي كومنتيسة وعقبضا وأتفهم ويسان أما أتقرا ويسان ama si oon wax oon ka noqda aadna la wadaagi doontaana waa rajaynaa ilaahay idamkiis aad iyo aad u mahadsantihiin kusoo dhawaada Bio Academy YouTube-ka ku leeyahay sidoo kale barta Facebook ee Bio Academy waxaan insha Allah taala Bio Academy u diyaar idin leeyahay mar walba soo gudbinta casharada iyo waliba macayiga oo ay soo gudbinayaan macallimiin u diyaarsan insha Allah taala waxaan xoogga saarnay si gaar ah galaaska 12aad ee dugsiga sare sidoo kale kama marna fasalada kale yana dugsiga sare insha Allah taala waxaan rajayn doonaa maalmaha soo socda inay si dhameystiran u soo wada bixi doonaan ilaahay idamkiis waxaan maanta halkan ku soo duubi doonaa insha Allah taala casharkeena socday ee ka baxay akademiyada Bio Academy waxaan rajaynayaa inaad la wada socon doontaan mar kale insha Allah taala maadadu waa chemistry fasalku waa 12aad insha Allah taala waxaan ku jirnaa casharkeena 6aad 5 cashar ayaan hor soo qaadanay insha Allah taala اللي 10 كيني اللي حاجة يا مان تلقى كسوق بدونا أقول جاب تركيني كوباد أيام كجرنا وحعوان مانتي نوعه نملك رجع أو الكين أي عوان نوعه وحنكسر هذا الكين كقاعدة ديسا طبعا أنت محنكر هذا اللاقي بتابس كيس أيام كسر هذا إن الله المام ورجينا يا عمر والبدي وهابين لقوا سمايا 10 هذا لقوا نقض ورجينا إن شاء الله تعالى نملك رجع أو الكين وحاوي يقاب كلام مجعبة أما مجعبتان كالكين كأيام هلكم كنت راسيدونا إن شاء الله تعالى نملك رجع أو الكين وحلنا هيدا النهم بس مجعيد أو الكين الكينسكا كونتين وحيك كوبي بريفك سرقلا هيك كوبي وجه إنديكيت كاسو عديو the number of carbon atoms أيو عديا وحو عديا أنت كربون ماشي تالو طبعا بريفكس كذا ما هو جلاس وحنو عندي دونا أنت كربون ماشي تالو يو نوع عدينيا halka suffix oo in ah isna uu ku gadaal gale suffix oo loo yaqaan gadaal gale oo loo yaqaan in kaas oo na tusi doona ama noo cadeyn doono waxa aan ku jirnaa ma aan ka hadlaynaa in alkene ay yihiin ayaan halkan ku soo gudbinaa yaani wuxuu noo sheegayaa suffix kaas waxa aan ku jirnaa meesha aan joognaa inuu alkene tahay tusaale ahaan alkene-ka dabeecad lagu yaqaan ayaa jiro dabcan uga duwan yahay alkene-ka iyo qaybaha kale alkene-ka waxa uu leeyahay si gaar ah uu leeyahay double bond ayuu leeyahay dabcan double bond-gaasu sida uu ku sameysmo markii aan ka hadalno labadan dabar ee meesha taalo midna waa sigma bond midna waa bi bond dabarka bi bond-ga ayaa mar walba double ka sameeyo haddii ay triple noqotona waa la mid oo caynkaas oo kale ayay noqonaysaa marka tusaale ahaan oo kaleeto meeshan double bond laba carbon ayaa taalo labadan carbon sidaadad waxay isku haystaan double bond laba gacmood ay isku haystaan sidaadad ani carbon kasta markaas waxa uu dhinaanayso ama ka banaanayso laba gacmood oo kasta mid kasta wuxuu ka haystaa laba hydrogen therefore waa ujeedaan ethene iyo propene aan iraado iyo butane dabcan waxa aan ka hadlaynaa waa suffix-ka oo in-ka ahay oo ah dabcan eth oo macnaheedu yahay labo iyo in oo macnaheedu yahay waxaan ku jirnaa inuu alkene noo cadeynayso ayuu noo sheegayaa halkan waa 3 carbon 3 macnaha halkan prop waa 3 macnaheedu sidaa darteed waxaan ku jirnaa waa in haddii in ahaan lahayd dabarkan meesha waa ka bixi lahaa dabcan halkana in ayay noqon lahayd sidaas oo kale marka halkana but oo macnaheedu yahay 4 inkastoo meeshan ay cilad ka jirto hal carbon ayaa ka maqan but iyana waxay noqonaysaa marka carbon afraad ay noqonaysaa macnaheedu waa 4 waxaan ku jirnaa waa alkene however marka si kastaba alkeneska waxaan leenahay are named waa la magacaabaa into two different systems laba system oo kala duwan ayaa lagu magacaabaa labadaas system waxay kala yihiin common system iyo IUPAC system ayay kala yihiin labadan midna waa only midna waa waxa waaye last version waa markii ugu dambeeyay la soo saaro waaye IUPAC-kan taariikhdiisa waxaan ku soo sheegnay alkene-ka markaan soo marin ayaan sheegnay common-ku waa wax magac hore loo isticmaalo ayuu noqonayaa halka IUPAC-guna oo noqonayo magaca dambe ee laga soo gaabiyay dabcan sida magaciisa ku taalo International Union of Pure and Light Chemistry ayaan fiiri doonaa marka mid walba waxaan fiiri doonaa qaabka looga magacaabo ayaan fiiri doonaa ilaahay idinkiis koow haddii aan kormarno marka common system oo ah magaca oliga ama magacyada qadiimiga haddii aan kormarno in this systemka kan alkeneska are named waa la magacaabaa using iyadoo la isticmaalayo appropriate prefix horgale ku haboon iyadoo la isticmaalayo ayaa la adeegsadaa suffix iyo gadaalgal loo yaqaan Waylin ayaa loo yaqaanaa
طبعا meesha aan ku celiyo in this system alkeniska waa la magacaabaa arnamed waa la magacaabaa using iyadoo la isticmaalayo appropriate suffix godalka horgala ku haboon aan iyo suffix loo yaqaano aileen ayaa ama waileen ayaa yani loo adeegsadaa therefore marka appropriate marka lagu leeyahay macnaheedu waxa waaye waa kuwii aan soo sheegnay prop beauty bent x safety oct wixii ahay waa dabcan waa appropriate kaas waxa waaye meel saddex kaarboon taalo afar ma dhigi kartid waa macnaha appropriate marka waa midka ku haboon oo saxda ah waa saas laga wadaa halka suffix oo inta badan maanta qaybta commonka marka joogna muhiimka noo ah common marka joogo waxa la isticmaalaa waileen ayaa la adeegsadaa ethylene tusaale ahaan butylene oo kaleeto propylene qaabkaas oo kale tusaalooyinkan waa sheegi kartaa meesha waxaa noo taalo marka afar kaarboon ayaa halkan noo taalo afartan kaarboon but ayaa ahayd afar ahayd marka waxa lagu dira waileen ayaa lagu dira waxay noqotay butylene ayay noqotay sidoo kaleeto halka saddex kaarboon ayaa yaalaan saddexda kaarboon macnaheedu waa prop oo waa saddexa waxaan ku xigo waileen ayaa ku xigo marka waxaan leenahay waa propylene ayaan leenahay okay laba kaarboon ayaa taala laba kaarboon macnaheedu waa waxaan ku diraynaa maadaama aan common saddex soo magacaabayno waileen ayaan ku diraynaa waxaan leenahay ethylene marka waa propylene butylene iyo ethylene ayaa leenahay qaabkaas commonka marka jooga nidaamkaas aan magacaabayna waxaan leenahay waileen kaas ayaan u dabadhigaynaa labadaas ereyaan isticmaali doonaa midna uu yahay appropriate prefix iyo suffix kaas loo yaqaano waileen waayahay ayuu baagaan galna marka ayuubag systemka markaan galno alkeniska arnamed waa la magacaabaa alkeniska arnamed waa la magacaabaa sida loo magacaaba alkeniska ayaa loo magacaabaa alkenis arnamed as alkenis arnamed as alkenis ayaa loo magacaabaa alkenis loo magacaabi jirna magacaabina laakiin the parent chain silsilada dheer of alkeniska must contain waa inay ka koobnaataa carbon double bond sidoo kale laba kaarboon oo isku haysta double bond waa inay ka koobnaataa maadaama alkeen aan magacaabino alkeen aan ku jirno waxaan ku qasbanahay the parent chain of alkene silsilada dheer ee alkeenka waxaan leenahay must contain waa inay ka koobnaataa carbon double bond double bond waa inay ka koobnaataa laba kaarboon waa inay isku haystaa laba dabar macnaha double bond oo laba dabar waa inay isku haystaa sidoo kaleeto double bondigaas must be indicated double bondigaasna waa in la cadeeyo in la sheego meesha ku yaalo tusaale carbon hebel ku yaala carbon 1 ku dhagan yahay maya carbon 2 ku dhagan yahay maya carbon 3 ku dhagan yahay qaabkaas oo kale in loo sheego marka systemka waxa leenahay alkeniska waa la magacaabaa sidii loo magacaabi jiray alkeenka ayaa loo magacaabaa laakiin parent chainka alkeenka marka la joogo waa inuu ka koobnaadaa carbon double bond waa inuu ka koobnaadaa laba carbon waa oo ka kooban double bond yani laba dabar isku haysto waa laga helaa sidoo kale double bondiga laftirkiisa waa in la cadeeyo waa in la sheegaa marxaba tusaalooyinka aan fiirino examples aan fiirino marka halkan waxaa noogu taala marka dhowr tusaalooyin oo kala duwan xaggan waa carbon double bondiga waa kana meesha marka la tirinayo waxa loo magacaabayaa sida caadiga ah oo aan u magacaabi jirnay alkeenka laakiin qodobkii koobaad oo ahaa qodobkii labaad oo ahaa ka bilow ma numbereynta yani 1 2 3 gaan ku qoran alkeen markaan joogno waxaan ka bilaabi jirnay dhinaca branch ku dhow yahay laakiin maantay alkeen waxaan ka bilaabi doonaa double bondigaaso dhinaca u dhow yahay ayaan ka bilaabi doonaa mar walba kaas ayaa na xukumo double bondigaas ayaa mar walba na xukumo waxaan ka bilaabi doonaa halkaas dhinaca u dhow yahay ayaan ka bilaabi doonaa waayahay halka marka waxa ku taalo 5 kaarboon ayaa taalo dhanka hadda ka tirna waa 1 2 kaarboonka saddexaad iyo double bond ku dhagan yahay marxaba halkan markii aan fiirinana kaarboonka koobaad kaarboonka labaad ayuu ku dhagan yahay double bond therefore waxaan leenahay marka la magacaabayo alkene ayuu bagname loo magacaabayo waxaan ku qasbanahay in double bondiga dhanka u dhow yahay tirinta laga bilaabo asagana aan tixgelin ku sameeyno therefore marka magacaabin waxaan leenahay marka 1 2 3 4 qaabkaas magacaabina liajli dabarkan ayaa dhankan dhow leftiga u dhow dhankaas ayaan ka bilaabnaa tirada maadaama kaarboonka labaad lagu dhagan yahay branch ka leexdan oo san jirin silsiladuna ay 5 tahay waxaan leenahay 2 oo u taagan double bondiga meesha ku dhagan yahay dhanka ka tirnaa meesha lagu dhagan yahay oo 2 ah iyo silsilada oo benta ah oo 5 kaarboon ah iyo in oo ah familkan ku jirno oo ah dabcan marxay noqon doontaa markaas 2 bentin ay noqon doontaa oo ah kaarboonka labaad oo 5 kaarboon ku dhagan 5 kaarboon yani waa kaarboonka labaad double bondi waana 5 kaarboon waxaan ku jirnaa waa alkene okay qaybta labaad aan fiirinayadana waa la mid waxaan mar walba tixgelin doonaa ayadana sidii hore aan kugu sheegay double bondigaas dhinac dheer tusaale meesha aan fiirino 1 2 3 dhanka markaan ka tirino qaabka marka u tirino waa 3 kaarboon straight hand inta u tirino 1 2 3 ayana waa dhankaan ka tirino waa 3 intaan ka tirino marka dana 1 2 3 waaye maadaama ay marka dhanka markaan ka tiriyo 3 iyo dhankaan markaan ka tiriyo 3 yihiin waxaan leenahay dadka chemistry-nada waxay dhahaan maadaama ay labada dhinac isku mid yihiin waxaan fiirin doonaa labada dhinac branch ku dhagan dhanka left iyo right-ka
branches ku dhagan haddii uu dhan dhinac ka mid ah haddii uu branch ku dhagan yahay dhinacaas ayaan tixgelinayna maadaama dhankan oo branch oo methyl group ku dhagan yahay dhankan ayaa tixgelinta la siiyay haddii uusan lahayn alkyl groupkan tirinta inta day ka bilowdo mushkil ma lahayn laakiin mid ogsoonow hadda iyadoo sidaana haddii tirintaana inta kasoo bilowdo wax qalad kama jiro oo ku saxantay laakiin maadaama qofku ku xeel dheeraatay baasha waxaa laga wadaa labada dhinac branchiga leh alkiinka laba maadaama saddex yihiin saddexdaas waxa wax u dhiiriga raadi oo branchiga leh dhankaana branchiga dhankaas laga bilaabo waxay noqotay marka kow kaarboonka labaad methyl group haysto kaarboonka saddexaadna waxaa ku dhagan waa in oo double bond ku dhagan silsiladuna waa 6 kaarboon oo waxay noqotay 2 methyl 3 hexene ayay noqotay dhanka saddexaad marka tusaalaha saddexaad aan fiirino tusaalaha saddexaad dhanka marka ka tirno 1 2 3 4 5 kaarboon waay xaggan marka ka tirno waa 1 2 3 4 meeshan su'aalaas ku weydiinana oo ah find the longest chain soo hel ayaa shuruudaha kamid ah shuruudaha markii longest chain loo tiriyo dhankan waa 6 طبعا وكو لبو سدح أفر شن واربع شن ولح ما وشن وكو لبو سدح أفر يشن وا لكن ما أنت وحا نقرن كو لبو سدح أفر صوتا يدي شيء مرك صوت وحيتها وحا أنت حقري دونا دبل بوند غاس دينا أو كودا جاي هاي أما سلسلة ده أنكال لنا ويوم دبل بوند غاس إلهتا هدي مرك كو شنطة أنت لنا واحد دبل بوند ملا وجوده كربون كان يالا كربون كان ولا حريرة دان كان مركي عن سخاب كان أطيرنا واحد دبل بوند ملا لكن دان كان مركي أطيرنا يدبل بوند سيرنا therefore أنا وحنا نقصي مركي دبل بوند غاس ينتحقل دونا أوكي وحنا لنا مركي دبل بوند لنا وحنا أنا نقصي مركي أنت واسكنا الجرين وحنا مركي كو لابو سدح أفر كربون تطيق قادينا أنت دي أطيرنا كو لابو سدح أفر واسكمت أفر وأنك أفر ترى قادينا مركي marka waxa leena waa 2 2 iyo waxa leena waa 2 dhankan 2 ah 2 3 4 tasan qaadan sababta qaadana waxay tahay anagoo 5 heli karno ayaa 4 dooranay yaani double bondigaas ayaan ma tixgelinayna qaabkaas laga wada marxaba waxay noqon doontaa marka tusaalaha branchiga kaarboonka labaad waxa ku dhagan ethyl group ayaa ku dhagan halka kaarboonka koobaad uu yahay dabcan double bond ku dhagan waxa marka 3 ethyl 1 butene ayaan leenahay oo ah kaarboonka saddexaad waxa ku dhagan kaarboonka labaad أنا داو ماشان كربون كلواد على قربي سوري كربون كلواد وحا كودا جن إيثايل جروب هالك كربون كوبان ويا بيوتين ويا هالك أنا فيرنا سلسلة كلا تو ماشان دبل بوند قرن سيد عادي كمرك أنت وصفان دبل بوند مرة بني تحكي دون ويا هالك محارن مرك كربون كوبان دبل بوند كودا جن أوتوماتيك أنت هترنت قبل مرك أنت نفيري كربون كوت كودا جن أنا واحد تحكي دون كربون كاس دبل بوند كاس تحكي دون مرك علينا 1 2 3 4 5 6 لنا therefore marka meesha waxa ku jirta laba double bond ku jirto dhowta magacaabina waxaan kaarboon koowaad iyo kaarboonka saddexaad waxa ku dhigan double bond double in yes double bond laga kaarboonka shanaad waxa ku dhigan ethyl group waxa la marka 5 methyl 1 hexadiene ayaan leenahay oo laga wada kaarboonka koowaad iyo kaarboonka saddexaad waxa ku dhigan diene oo ah laba dabar ayaa haysto kiiba double bond inta double bond ku dhigan 3 double bond ku dhigan marka 5 methyl 1,3 hexadiene waxa kala dhigaa 1,3 hexene waa la dhihi karaa waa isku mid labadaas meeshaan ku celiyo 5 methyl 1,3 hexadiene waa sax 5 methyl 1,3 dihexene iyana waa sax labadaba waa la adeegsan karaa preparation marka qaabka loo diyaariyo aan isla fiirina alkiinka aan fiirina qaabka loo diyaariyo ama qaabka loo diyaariyo fiirina waxa leena number koobaad soo qaadana dehydration of alcohol oo ah alcohol in biyo laga saaro dehydration means removing waa in biyo laga saaro waaye okay erga D means we're removing hydration of alcohol waxa dehydration removing of water waaye in laga saaro biyo then ay soo baxdo double bond aan qaabkaas waa in this process hanaanka kan alcoholiska ayaa isii la kuleynaya in the presence ayadoo ay xaadirta ama aan uga faa'iideysanayno of sulfuric acid ashitada aan naqaano sulfuric acid ama phosphoric acid ayaan ku yaani aynu adeegsanayno ayaan kulay doonaa alcoholkaas si aan u soo saarno alkene oo ah double bond hadafkeenu wuxuu ah double bond inaan helno waayahay marka process-kan isticmaalayna alcohol inagoo kuleynayno si aan u soo saarno dabcan alkene inagoo adeegsanayno sulfuric acid iyo phosphoric acid laajli catalyst ahaan ayaan adeegsanayna labada meeshan kaarboon taalo oo jeeda meeshan gacmaha hydrogen ayaa ka muuqda weyn maaha halkan hydrogen aan ku dhigan xaggana hydroxide ay ku dhigan therefore waxa la adeegsaday acid ayaa la adeegsaday oo sulfuric ama phosphoric ayaa la adeegsaday hydrogen-ta iyo waxa la barabaxshay iyo hydroxide-kaas ayaa la barabaxshay biyo ayaa soo baxay double bond ayaa sameysmay qaabkaas ayuu ku sameysmaa qaybta koowaad qaybta labaad aan fiirino dehydrogenation of alcohol la dhigta in di erga di awil daba socda macnaheedu yahay removing
marka di waa wax la saaro waaye waxaan leenahay marka dehydrohalogenation waxa waaye in la saaro hydrogen iyo halogen in laga saaro silsiladii kadibna uu alkene soo baxo waaye in this process halkan kan alkyl halide waxaa la alkyliska ama alkyl groupka leh halides ama halogenska ku dhagiina waxaa la alkyl halides ayaa acetyl la kuleeyay in alcoholic solution ay loo kuleeyay solution ama miln alcohol ayaa loo kuleeyay of potassium hydroxide ayaa loo kuleeyay to produce loo soo saaro alkene loo soo saaro marxaba tusaalahan fiirin marka bromethane gives ethene ayaa lagu dhahay bromethane oo alkene ayaa waxayna sii doontaa ethene ayayna sii doontaa qaabka aan fiirin marka meeshaan u jeedaa bromethane ayaa qorneed waxaan lagu daray potassium hydroxide alcoholic acid ama alcoholic solution ayaa la kuleeyay waxaa soo baxday marka ethene plus waxaa soo baxday potassium bromide plus water ayaa soo baxeen marka waa la kuleeyay meeshan biyana waa laga saaray sidoo kale waxaa kaloo la saaray biyahan waxaa laga dhex saaray macnaha alcoholigan iyo hydroxide commercial ayaa laga dhex saaray alcoholic solution kan uu sheegay ma potassium hydroxide kan ayaa laga dhex saaray meeshan marka anaga hadafkeenu wuxuu ahaa dehydrohalogenation hydro macnaheedu hydrogen iyo halogenation of bromine marka labadaas ayaa la saaray waxaana soo baxay alkene ayaa soo baxay qaabkaas waaye bromethane waxa noo soo baxday ethene ayaa noo soo baxay marxaba physical properties alkene kan fiirino waxa leenahay number 1 the first three alkenes waxa leenahay waa gases saddexda ugu horeysa alkene waa gas aan leenahay saddexda ugu horeysa waa methane iyo macnaha methane iyo ethane waxa waa saddexdaas waxa leenahay waa gases negative few members waxa leenahay waa liquids yani kuwa ku xigo oo yar yarka in waxa leenahay waa dareere kuwa higher members kana waxa leenahay waa adkiyaal ethylene waa colorless waxa waa gas waa colorless kuwaas oo leh yani sweet odor yani caraf macaan ay leedahay while others ka halka oo kaleetana ayeen colorless yani kuwa midab la'aan waaya waxaan leenahay qodobka saddexaad they are soluble waxay ku milmayaan baa leenahay alkinku in organic solvents waxyaabaha organic solvents ama milmayaasha ama waxyaabaha wax milay organic ay ku milmi karaan sida benziinka oo kale laakiin insoluble kuma milmayaan in water biyaha kuma milmayaan wada marxaba aad ma santiin insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa 10 sii wado doona idinka la socon doontaan wixii comments wixii maxaan ku raadahay feedback